የተከበራችሁ 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ውቢቷ ሐዋሳ shirweynaha koow-tobnaad ee xisbiga talada dalka Itoobiya haya EPRDF ayaa ka furmay magaalada Hawaasa ee kililka Oromada. Shirweynaha xisbiga EPRDF ayaa sanadkan ka bedelan sidii hore ka qaybgalayaasha shirka oo gaaraya ilaa 1500 oo ergey ayaa si weyn loo baaray ka hor inta aysan gudaha u galin goobta uu shirka ka dhacayo. xisbiga EPRDF ayaa ka kooban 4 xisbi iyo sidoo kale 5 xisbi bahwadaag lagu magacdaray kuwaasi oo dhammaantood ka qayb galay shirkan waxaana ka mid ah xisbiga Soomaalida 25 sano la soo dhaafay waxa dalka ka talinay EPRDF waxa uu lagu eedeyn jiray inuu ka geystay gabadhalo dhanka xuquuqul aadanaha oo ka dhacay gudaha dalka Itoobiya mana jirin xisbi kale oo fursad u helay inuu dalka maamulo. waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah xisbiyada bahwadaagta iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. khudbadda Abiy Ahmed Tacaali ayaa wuxuu ku sheegay in EPRDF ay dalka soo maamulayeen dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayna haysteen xisbiga dhibaatooyin waaweyn kuwaas oo qaarkood ku guuleystay inuu xalliyo. hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa caddeyn u ah sida uu u jiro culays dhanka siyaasadda oo xisbiga dhexdiisa ka jira. ajendayaasha shirka ayaa waxaa ka mid ah sida la sheegay qiimeynta xaaladda guud ee dalka, isbeddelku Abiy Ahmed ka sameeyay gudaha dalka iyo dibadda, iyo sidoo kale xisbiyada bahwadaagta naftooda qayb ka noqdaan EPRDF. siyaasadda dalka Itoobiya ayaa ahayd mid cakiran ka hor inta aan Abiy Ahmed loo magacaabin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. kacdoon dadweyne oo dhimasho aad u badan dhaliyay ayaa dalka ka dhacay sanadii 2015 taa ugu dambeyntii qasabtay in ra'iisul wasaarihii xilliga Haile Mariam Desalegn uu xilka iska wareejiyo. Abiy Ahmed ayaa sameeyay isbeddel dhanka hoggaanka ciidanka, siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda waxaana ku dhawaaqay in dalka Itoobiya uu yahay mid isku baahan sidoo kalena loo baahan yahay ilaalinta xorriyadda qowlka iyo xisbiyada mucaaradka dalka dib ugu soo noqdaan dhammaantood. waxa uu sameeyay isbeddellada dhanka siyaasadda waxa uu heshiis taariikhi ah la gaaray dalka Eritrea kaas oo khilaaf dhanka xuduudda uu kala dhexeeyay Itoobiya iyo Eritrea waxaa ku dhintay sida la sheegay ku dhawaad 70,000 oo qof iyo sidoo kale inta ka badan ay ku barakaceen. ugu dambeyntii Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay in uu wadahadal la furo dalka Eritrea heshiisna la gaaray isagoo booqday magaalada Casmara ee xarunta dalkaasi Eritrea. Abiy Ahmed ayaa caddeeyay in bulshooyinka Itoobiya ay yihiin kuwo isku baahan mar walba inkastoo ay jiraan caqabado dhanka qowmiyadaha ku saleysan kuwaasi oo u dhexeeya qowmiyadaha Oromada, Soomaalida iyo Axmaarada. Soomaalida ayaa haatan u arka Itoobiya inay fursad gooni ah siinayso oo taasi ay kaga mid noqon karaan xisbiyada dalka ka jira. iyadoo madaxweynaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu sheegay in wax badan uu ka qabanayo xaaladda xuquuqul insaanka iyo sidoo kale xorriyadda qowlka. kililka Soomaalida ayaa 5 sano la soo dhaafay waxaa ka dhacay sida la sheegay dambiye waaweyn kuwaasi oo ku saleysan dhanka caburinta hoggaanka iyo sidoo kale in maamulkii hore ee uu hogaaminayo Cabdi Maxamuud Cumar uu cid kasta oo ka soo horjeeda uu la dhaqmo jiray si aan naxariis lahayn. golaha wasiirada Itoobiya ayaa liiska argagixisada ka saaray kooxihii mucaaradka ah ee ONLF iyo sidoo kale OLF. dalkii dib ugu soo laabteen kadib 20 sano markaasi ay booqdeen goobaha ay ka soo jeedeen asal ahaan. ugu dambeyntii shirweynaha EPRDF ayaa maanta loogu doortay Abiy Ahmed inuu hogaamiye ka noqdo sida halka Demeke Mekonnen oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka haatanna loo doortay inuu noqdo hoggaan ku-xigeenka xisbiga. iyadoo shirka kadib madaxweynaha dowladda Soomaalida uu sheegay in wax badan ay ka filayaan shirkan inay ka soo baxaan. Absaaq Shaasan Dhaban Television, Nairobi.